بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، ونصلي ونسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. ثم ما بعد، labada aayadood dib baynu ugu celinaynaa sababtoo ah xalay waxoogaa taqdiim iyo taakhiirkii baan ishoriya daba mariyey. marka mar hadday kaliibkiisi yaroo khaldan u gashay in mar kale ay si saxa u gasho insha allah. qaala tacaala, ilaahay wuxuuhi wadkuruu xasuusta reer bani israa'iilow id xilli qataltum aad disheen dhexdiina nafsaa naf aad disheen, ciddii dishayna aad garan weydeen. fadaara'tum waa isku riixriixdeen, waa isku tuurtuurteen, fiihaa ay fi nafsi naftii maqtuulada ahayd dilkeedii baa isku tuurtuurteen, waa ku muranteen. adaa dilay imaan dilin, idinkaa dilay imaanaan dilin, saasaa ugu muranteen. marka fadaara'tum fiihaa jumlada iyo faqulna dribuuhu baa isku cadfan. jumlada dhexe ah mubtadaha ah ee ibtidaa'iga wallahu mukhrijun maa kuntum taktumuun ictiraad baa la yidhaahdaa. ictiraadku waa maxay? waa dhextaal. marka afka carabida taqdiim iyo taakhiir wuu ka mid yahay, in jumalka ictiraad la dhexgeliyaana wuu ka mid yahay. hadda halkan qisada dhacdadeeda dilkan waa sababtii keentay in neefkan la amro saca ah inay keenaan oo gowracaan. marka dilka horeeya, neefka baadigoobkiisa iyo gowriciisa dambeeya. marka gowricii wuu inoo soo dhammaaday, fadabaxuuha wamaa kaaduu yafcaluun. laakiin maxaa sababay? dilkan baa sababay. marka waxaan isku xidhaynaa labada jumladood ee macduufka ah. fadaara'tum waad isku riixriixdeen fiihaa ay fi nafsi naftii baa isku riixriixdeen. faqulnaa waxaanu idin nidhi markaa neefkii birayseen la idin amray inaad biraysaan, waa birayseen neefkii. faqulnaa waxaanu idinku nidhi idribuuhu ku dhufta. damiirkuna yuu u noqonayaa alqatiil, ka la dilay, waa naftii la dilay. marka horena mu'anath buu ku yimi, hadeerna mudakar. marka waxay kuusii caddaynayaa waxa dhintay inuu nin yahay. faqulnaa waxaanu idin amarnay idribuuhu ku dhufta bibacdihaa neefkaad birayseen hilibkiisii barh ka mid ah. marka damiirkana baqaradii way ceray bibacdihaa neefkii aad gowracdeen bibacdihaa barhkeed. ku noqo markaa jumladii hore. wallaahu ilaahay sidaa maxaa la idiin amray? wallaahu ilaahay jala jalaalu mukhrijun ay mudhirun wuxuu muujinayaa oo bannaanka keenayaa maa kuntum ay iladii kii kuntum a ahaydeen taktumuunahu kuwa qarinaya. waxaad qarinaysaan, qof baad disheen, qaatilkii baa qarinaysaan. wallaahu alle mukhrijun ay mudhirun wuxuu muujinayaa maa kuntum waxaa ahaydeen taktumuun. oo halkaa waa maxay? faqulnaa waxaanu idribuuhu ku dhufta, waa ku dhufateen. faxaya wuu noolaaday, ise soo tarabsan. yaa ku dilay? hebel bay dilay. waa inanku adeerka u ahaa sida raajixa ah, kaasaa dilay. markiiba haddana wuu dhacay. ilaahay wuxuu yihi subxaana wa tacaala kadalika ay mila dalika alixyaa, noolayntaa mid lamida, mila dalika alixyaa, noolayntaa mid lamida aanu hal qof, waa qofka aad hortaagantihiin noolaynay. yuxyi illaahu buu alla u noolaynayaa almowtaa wixii dhintay oo dhanna wuu u noolaynayaa. wayuriikum waxaanu idin tusayaa aayaatihi aayaadka qudradiisa, oo qofka imanka dhintay ee soo noolaaday waxay calaamadu tahay bacdiga oo dhan, sida hadhowna dadka oo dhan u wada noolaynayo. lacalakum tacqiluuna likay tacqiluun, si aad u garataan oo u fahantaan. qisadii waynu ka soo sheekaynay. maxaase ka dambeeyey? bal u fiirso waxaana ka dambeeyey. qaala tacaala, ilah wuxu uhi uma intaa kadib. tartiib zamani baa muujisaa, laakiin hadda halkan zamanigii faa'iideyn mayso. isla goortiiba, waktigiiba qasad way qallashay quluubukum qalbiyadiinu min bacdi daalika kaa dabadii. waa kan u dambeeya, waa ninkaa la nooleeyey iyo aayadii ka horreeyey oo dhan.
dhagax baa soo aragteen biyo ka burqanaya almanna wasalwa baa soo aragteen badiyo idinka dhambalatay baa soo aragteen aayado fara badan baa soo aragteen thumma qasat way qallashay quluubukum quluubtiinu min bacdi dalika intaa kadib fahiya quluubtiini kalxijaarati waa sidii dhagxaanta oo kale aw ashaddu qaswa awdaasi hadda waxa ugu raajaxsan qowlka odhanaya tufiidu tanwiic bay faa'iideynaysaayo waa laba qaybood waxay la mid tahay aayadaha suuradda bilowgeeda ku soo maray markii munaafiqiinta madalka loo yeelay ayaa laba laga dhigay aw ka sayibin min asamaa'i fiihi dulumaatun wa racdun awdii halkaa ku jirtay ee qolana waxaa lagu shabahay kalladii istawqada naara qolana waxaa lagu shabahay aw ka sayibin min asamaa marka awdii halkaa ku jirta iyowda halka ku jirta waa isku mid weeye tanwiic bay ku faa'iideynaysaayo quluubtiinu xagga qaswada waa laba midoon kalxijaara qaar dhagxaanta oo kale ah aw ama qaar wa ashaddu ka adag qaswada ka adag marka labada qalbiun baa labada nooc baa tihiin qaar dhagxaanta la mida iyo qaar dhagxaanta ka adag labada nooc baa tihiin wa ina min alxijaarati bal eegina dhagxaanta qalbigoodu kasii adagiyay kuwa maxaa calaamada wa ina min alxijaarati dhagxaanta waxaa ka mida lamaa laamtaa waxaa la idhaha laam almusaxlaqa oo musaxlaqa maxaa la idhaahdaa mubtadihii bay gashay khabarkiina waa la hormariyey oo jaariya majruurka waa khabarkii oo horeeya maaduna waa mubtadihii oo dambeeya sidaa darteed baa ina gashay tansibu lisma wa tarfacu alkhabara tii la odhan jiray weeye markaa sidaa markay tahay maa waa ismu mawsuul wa ina min alxijaarati dhagxaanta waxaa ka mid a lamaa ay laladii kiibaa ka mida yatafajaru ay ka soo burqanayso minhu xaggiisa alanhaaru wabiyaal biyo fara badan oo wabiyaala wabiyadaa dhulka maraya dhagxaan bay kasoo burqanayaan bifadli illah wa ina minhaa damiirkana xijaarada u celi wa ina min alxijaara dhagxaantii waxaa ka mida lamaa ay laladii kiibaa ka mida yashaqaqu ay yatashaqaqu kala dhandhambalmayo kala dildilnaacaya oo fa yakhruju ay kasoo baxayso minhu xaggiisa almaau biyo toore webi bay ahayd tani waa ilo biyaa waana la wada aragnaayo waa mushaahid indhahaynu way hayaan meel kastoo la maro wa ina minhaa waxaa ka mida dhagxaantii lamaa ay laladii kiibaa ka mida yahbitu soo degaya waa meel sare kasoo daadegaya min khashyati illaahi alla cabsidiisa kaasaa ka mid a wama allahu alla maaha bigaafilin kii moogan camaa ay can aladii kii tacmaluunahu aad samaynaysaan oo waxaad u qadaraysaa damiirkiina sida kuwa horba maynaan qadarin laakiin waad garanaysaa ismu mawsuulku inuu damiirkiisa wato camaa tacmaluunahu ay can aladii kii tacmaluunahu aad samaynaysaan waxaa la idhahdaa bal qaswada dadkaasi waa dadka maanta aynu ishayno hadda halkan rafax uga duceeyaa layna leeyahay qaza uga duceeyaa la leeyahay yaynu ishaynaa waa kuwan ilaahay ka warramayo waxay culammadu dee waktiga aynagu yaray halkan inoo soo arooriyaan waxaa la yidhi markuu ninkii soo fadhiistay isagoo dhiiggii ballacdahayo war yaa ku dilay dee waa kan ninkii dilay uu dhacay haddana maydkiisiiba dib uu noqday halkii bayse soo taageenoo maanaan dilin buu yihi maana dilin war waa beentiisa bal mucjisadu meeshay ka dhacday ninka taagan ee lemaan dilin waa beenaale ma qabo dhiiggiisa maxaad ku daweynaysaa marka waa qalbi qalalay ninka xaadisada mucjisada ee qof dhintoo la nooleeyo haddana dhimashadii ku noqday isha saaray yaa ku dilay yidhi ilaahay ka dhawaajiyey kanaa i dilay ee lama dilin waa qalbi qalalay in sha allahu mucaasiriinteenna maanta jooga rag baa jira risaalaad ka alifay qisat lbaqara risaalaadkaasi yani dhowr boqol oo safxadood weeyaan shabakadana waa ka helaysaan oo way helaysaan waxyaabaha ay risaalada ku soo arooriyaan waktigu aynagu yar in yar baan ka soo qaadanaynaa waxaa ka mid ah maanta magacii israa'iil dowladda halkaa fadhida baytalmaqdis haysata
مركي ورانا الله قال لها اذهب أنت وربك فقاتل إنها هنا قاعدون بما أنت هايستون هاينا حق يا بعض الكسيدي ويسوهيا waxyaabaha ay intay qof dileen ikhtiyaal ku sameeyeen tira ma laha waxaa ka mid a marka hadda qolada ay islaynayaan ee ay isku hayaan waxaa weeye waa xamaas ilaa muddo dheer bay hayeen waxyaabaha isla soo mareen waxaa ka mid a markay ninkani marka haysto waa Netanyahu kan shaydaanka ah ee hadda maanta fadhiya waqtigu fadhiyay waxaa dhacay carabaha dad badan waa jilceen oo waxay la galeen tadbiic wax la yiraahdo heshiis bay la galeen waxaa ka mid ah urdun goortay tadbiican la gashay wuxuu ahaa 1994 waadi caraba ayaa loo bixiyay heshiiska bayna urdun iyo Israa'iil dhacay waadi caraba markuu 3 sano jiray falastiiniyiinta reer xamaas oo ka mid yahay ninkan hadda quwaadooda ka mid ah Khalid Mash'al la yiraahdaa wuxuu joogay urdun caasimada urdun Amman buu deganaa xafiiska uga furnaa isaga shaqada hayay Netanyahu marbay intay wax qarxiyeen sida maanta dagaaladaas u socdaan ayay Israa'iil gudaheeda wax ku laayeen Xamaas baa lagu eedeeyay amar buu soo saaray intuu shir wasaaradiisa qabtay oo leeyahay quwaatu Xamaas ikhtiyaal ha lagu sameeyo Xamaas madaxdooda oo dhan ha la dilo amarkii waxa fulinaya qaybta moosaadka la yiraahdo waa sirdoonkooda dibadda qaabilsan qayb waliba u qaabilsan qaybta militariga ee ikhtiyaalaadka daraasad badan waxa lagu sameeyay gurigu degan yahay xafiisku ka shaqeeyo ha gaarigu raaco jidadku maro dhulku maro wixii oo dhan bay daraasad rasmi ah ku sameeyeen ma saacadu soo baxo saacadu shaqada galo dhaqdhaqaaqiisa oo dhan way yimaadeen rag bay u soo xil saareen baasabooro Mareykan Canadian way soo qaateen ay ku soo galeen urdun halka markay yimaadeen isagoo xafiiskiisii sii galay dhowr jeer bay ku fashilmeen waxa loo soo dhiibay sun yar oo aynaan inagu aqoon oo magacyadeeda la qoro iyo bahal la tiriyaaq oo suntaasi qofka ay ka daweynayaan ka saaraysa kay dilayaan u deynaysa gaarigii markuu ka degay oo isiri xafiiskii gal baa laba nin oo loo qaybshay daba carreen dhag yar inan oo dhalay iyo ninkii gaariga u waday baa arkay way ku qayliyeen Khaalidow waa lagu daba socdaa Khaalidow inantiisiba waliba aad u qaylisay aabo uu soo jeestay waxa kulmay soo jeestay iyo bahashii irbadii ay sideen sidaan dhash kaga siiya halka dhagtay ka galiyeen waa bahal sunaho jirka markay gasho markiiba qofku goomo u galayaa in yar kadibna wuu dhimanayaa in yar kadibna way ka baxaysaa adigu calaay xaal qisadu way dheer tahay ninkii labadii nin rag kale u yimi waa la eriyaday gaarigii waa la ay fuuleen baa la qoray waa la dabagalay aakhirkii labadiina waa la soo qabtay dawladii urdunna jiq bay ku noqotay boqorkii baa soo farageliyay labadii nin waa waxay sitaan waa dalxiis bay ku soo galeen baasaboorro Canadian ay sitaan dawladii Canada loo yeeray safiirkeedii waa maxay nimankan uu waraystay markuu gartay ayuu waryaareen nimankan anaga ma dawladii Canada safiirkeedii baa bay ka qaadatay bal halkay jariimo ka gaareen day baasaboor dawlad kale bay ku eedaynayaan على حال دودينا ترياقي بدبادين نتنياها لفتي سيقصب كل نقطة إنه كان دودي مركي ورنا واي كانن لكن مدي كور وريجان آخر كوالقوم مدي ستين واي كبح هذا مركو دور شاركهم قلي ولذلك ما أنت يلقب به الشهيد الحي وحلقونا عن إسا ما أنت الشهيد الحي ولنا وحي ويوضان ما أنت ولنا وحي ويوضان إلهي شركوا ذا هنا يجهز ثم قست قلوبكم وإن منها وحاكم إذا لما يهبط للذي كيبا كم إذا يهبط سودق من خشية الله اللعب سديس الخوح على قاطع مخلوقات كجمادات كهذان حيوان كهذان أن مكلف كأهين إن إلهي تسبيح سنيان وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم ما قرنا إنه تسبيح هذا إن قلف في عينه إن قعب سبدين قصص كودنا وبدين
halkaa waxaynu ku joojinaynaa oo inoogu joogsanaysaa qisaskii ku saabsanaa kuwan maanta inala nool aabayaashood. waxaa laynoo geli doonaa kuwan maanta inala nool ee ka soo bilaabmaya rasuulkii maxamed sala allahu calayh wasalam ilaa yoomina haada. afar fariiq baa layna xasuusinayaa, waana laynaga qoosinayaa dadkaasi ilaa nebi muuse sidaas samaynayay marnaba inaynan damac ka gelin oo rajo ka gelin dad dhow inay yihiin. waana waxyaaba xataa siyaasadda aynu ku fashilanay, dadkaynu la tacaamulaynaa dad dhow maaha. qaala tacaala afar qaybood buu ilaahay ka dhigi doonaa. qaybta koowaad waa culimadooda, qaybta labaadna waa munaafiqiintooda, qaybta saddexaadna waa ru'aasadooda mujaadiliinta eheladooda iyo kuwa, qaybta afraadna waa caamadooda. afartii qayboodba waa kuwan. qaala tacaala ilahi wuxuu yidhi afatadmacuuna, hamsadaa waxaan la yidhaahdaa hamsatu lmusaxlaqa. hamsada la yidhaha hamsatu lmusaxlaqa xaggay gashaa? saddex xaraf dabadood bay ka hor dhacdaa. mid waa fa, waa kan inoo yaala. midna waa wow, uu inoo iman doonaayo waa awalaa yaclamuuna ana allaha yaclamu maa yusiruuna wamaa yuclinuun. midna waa uma idaa maa waqaca aamantum bihi ayuu inoogu iman doonaa. meelo badan oo qur-aankaana uu ku jira. waxaa la yidhaha alif lmusaxlaqa. wowga iyo fa'da iyo humada way ka dambaysaa xagga maxay, laakiin xaggii maadaama istifhaam ay tahay way ka hor dhacaysaa. hadda waxaynu soo maray laam lmusaxlaqa. laam lmusaxlaqayna soo, hamsadana waa hamsat lmusaxlaqa. laba qowl baanay naxwaha ku leeyihiinoo jumhuurta waxba loo qadari maayo xagga niyada mooyaane, iyo qolale waxbaa loo qadaraya oo samaqshar iyo keyrkii ah. marka insha allah ta jumhuurtaynu iska raacayna waxba u qadari mayno. qaala tacaala afatadmacuuna, war ma waxaad rajo ka qabtaan? afatadmacuuna, ma waxaad rajo ka qabtaan oo hunguri ka qabtaan? an yu'minuu lakum, aamanana markay laamka ku tilmaanto ku gudubto marka maxay noqonaysaa? ay an yaxdutha aliimaan, iimaan inuu dhaco. an yu'minuu lakum, an yaxdutha aliimaan, iimaan inuu dhaco. lakum ay liajli dacwatikum, dacwadiina dartii, yeedhmada aad iimaanka ugu yeedhaysaan dartiin ma in iimaan dhaco ayaa damac ka qabtaan oo kuwan muuminiin ay noqdaan sidiinoo kalea. marka qaybtii koowaad waa kaa fariiqii koowaad. walxaal qad kaana waxay ahaadeen fariiqun qayb oo minhum iyaga ka mid ah, waa yahuudi, yasmacuuna waxay maqlayaan kalaam allahi alla hadalkiisa. oo hadalka maqalka alle waa sidee? laba wajaa lasoo areelaya. keeta hore waa daciife, taraajix waxayn kalaamkan ay maqlayaan waa kii soo gaadhay can dariiqi muusa wa tawraat. oo waxay la macno tahay insha allah aayaddan suurati ugu tegi doono tawba. وإن استجارك هديكم مجنجلان مجنجلي حتى يسمعوا كلام الله. كلام الله مقلة يا واكي والقرآن كان ورسولك سوى قارسين صلى الله عليه وسلم. وقد كان وحي هذا فريق كوح ومنهم إياه كميدا كوا يهودي يسمعون وحي مقلة كلام الله على هذا الكيسي اللي سوى قارسية طريقة موسى لقو سوى قارسية كتابك التوراة بين مقلة أوامرتي نواهي لسي. ثم انت كتب يحرفون ويبدليان هو كتابك يا كلامك الله يبدليان من بعد ما عقلوه انت فهمين كذب اي يغو بريريان بدليان والحال هم ايهين يعلمون قار اكسون لبدن بين يكجران دنبغا هوري انو يحي اني هذا الكلاه تحريفيان دار لغادنا اي wax kale ku bedeleen. qoladaas waa fariiqa koobaad, waa culamadoodii waxay halkaa la taagan yihiin taxriif. فريق اللبات ومنافقين وإذا لقوا مركي لكل مان الذين كوي آمنوا إيمانك ليمي قالوا وحي أرنيان آمنا مؤمنين بانو ناي. وفريق اللبات ومنافقين ويهود قالوا هل كذا كاد كيسنسي قال يدو المنافقين مثلا عرفتوا المنافقون ولا عبد الله بن ابي بن سلول يجروب كيسي قال منافقين ولا هاي قالوا آمنا وإذا رجع خلا هرين وقصا مري وإذا خلا أي وإذا رجع مركو الله بطه بعضهم بركود إلى بعض بركة كلا كوي منافقين تاها
ayaa qoladii kale waa fariiqii saddexaad waxa weeye waa ru'asadoodiiyo yujaadiluun way la murmayaan kuwii aamanaa yidhi qaaluu waxay ku odhanayaan atuxadithuunahum warma waxaad u sheegaysaan muslimiinta bimaa biladii kii fataxa allahu alla idiin furay calaykum korkiina iyo akhbaartuu idiin sheegay oo ay ka mid tahay wasfiga nebi maxamed baa u sheegaysaan oo aa ku leediin haa waa kii saxa ahaa ee kitaabka iyagu sheegay waa fariiqii saddexaad fariiqa koowaad oo culama wax tacriifinaysa fariiqa labaad waa munaafiqiin weji iimaan muujinaya iyagoo hoosta gaalnimo ku haysta fariiqa saddexaad waa fariiq qolada munaafiqiinta hadallada saxa ah ee ka soo dhacaya la doodaya wahum ru'asaa waa madaxdoodii liyuxaajuukum si ay idinkula doodaan bihi waxa aad u sheegteen cinda rabbikum rabbigiin agtiisa si ay idinku doodaan oo xujada idhahaan waa idinkii lahaa nebi maxamed xaq buu ahaa waana raaci weydeen fariiqaasina waa fariiqii afraad marka maxaad haysataa may fariiqii saddexaad insha allah ka afraad wuu ku iman doonaa waa minhum ummiyuun weeye waa caamadii baa la yidhaahdaa awalaa yaclamuuna tanna tii horay la mid tahay fa'dah istifhaamtu waa musaxlaqa xaggii horay gashay waanay ka dambayso wowga dabadii inay dhacdaabay ahayd maxaanay xagga hore u gashay had iyo jeer sadaaray leedahay hordhacay leedahay awalaa yaclamuuna oo miyaanay ogeyn ana allaha alle yaclamu inuu ogsoon yahay maa yusiruuna waxay qarinayaan iyo wamaa yuclinuuna wax allaale waxa ay muujinayaan inuu ilaahay ogsoon yahay miyaanay ogeyn awalaa yaclamuuna miyaanay ogeyn ana allaha alle yaclamu inuu og yahay maa yusiruuna waxay saraysanayaan iyo wamaa yuclinuun wax allaale waxay muujisanayaan nin ilaahay ka sarreeya xaguu ku dhuuman meesha doonto qabo ilaahay isaga ayaa ku kashfinaya waanu ku fadeexadeen ilaahay hayna asturo jala jalaaluhu saddexdaa fariiq maxaa la war sidee muslimiinay damac idinkaga jiraa dadka inay iimaanaad ku ridaan ood xagga wanaagga kusoo ridaan waa mustaxiil saddex fariiq baad haysaa qolo waa culimmadoodii iyo waxaan taxriif ahayn uma taagna qolo waa munaafiqiin weji buu ku tusayaa beenna wuu kuu sheegayaa hoostana balaa u fadhidaa qolo waa ru'aso oo min waraa'i sataar bay fadhiyaanoo kuwa hadalladu ka soo dhacayaan bay leeyiin maxaa u tidhaahdeen ilaa yowmina haada waxaad og tihiin bal sharkoodu siduu yahay kuwa ra'asadooda kelmad yari hadday nin ka dhacdo isaga laftiisay khaarijinaya isaga laftiisa ayay khaarijinayaan maanta wasaa'ilul iclaamka iyaga ayaa haysta lama sheegi karo waxaanay raalli ka ahay marka la sheegana waxay odhan waa maxay waxaad ku hadashay atuxadithuunahum waxaad u sheegaysa yaa idin yidhi saa wax ku sheega waa dad cajiiba waana maanta runtii rajada qura ee caalamka oo dhani uu qabo waa islaamka oo ka adkaada yahuud maanta dhakadayna kaga fadhiyaan waa islaamka oo ka adkaada yahuud iyaga waxa ka islaamaya waa qaliil wax yar aad buu u yaryahay bal fariiqii afraad u fiirsa marka kooxdii shan afraad ومنهم ويهود دميركنا وعلي ومنهم أيوة من اليهود يهود وحاكمذا أميون قارا وحنا قرين وحنا آخرين أمي محال هذا واسدي هو يدي كل شيء لا يقرأ ولا يكتب حب آخريو وحنا بقرأ لا يعلمون قرن مايان الكتابة كتاب كان توراة ee qolada maxay culimadooda ahi bedbedelayso ee marba siday doonto u dhigayso laa yaclamuuna garan maayaan alkitaab kitaabkan cilmi uma leh ay culimadooda ku shaqaysanayso ilaa amaaniya culimada tafsiirka iyo culimada naxwuhu maanta way isku waafaqsan yihiin khilaaf ma jiro in istithnaagaasi yahay munqadic istithnaa munqadic baa la yidhaahdaa استثناء منقطع وامحي واحد دنبه كما ترسنا واحد هوري واحد دنبه وجهلي واحد هورنا وعلمي جهلي يعلمي اسمه سوق قلان قالوا هوري وحوين لا يعلمون الكتاب بالر وعلم الكتاب حاجة دنبنا
أماني وجهلي مركا واحد كل غبينيسا ولكن هسيشة لا يعلمون قرن مايان الكتاب قرن مايان وجاهلين بيكيهين جاهلي قود وامحي ولكن هيشة أمانية ومنصوب مركا محل قلنا نصبنا يا فعل مقدرا يعتقدون وحي الرميسيين يعتقدون وحي الرميسيين أمانية يديلوين بينا باعتقادسيين وأصل عن شرعك كل هين وإنهم أي وما هم منعها إلا مويانا يظنون قاروا ملايين ملهم بيكوشران ملاها سنة وملا بحق كفق وآدي آدو كفق مركا أماني ذو ذا محاكم إذا إن إلهذان نحن أبناء الله وأحباؤه يا كشبي علماء ذا كشبتي وحنونها أبناء الله وأحباؤه على عرورته على يكوش على وينوي من أنت ما إذا محاكم إذا أماني ذو ذا لن تمسنا النار إلا أيام معدودة إلهي دون عذابنا ما المير بن عقابه وينوي من أنت محاكم إذا أماني ذو ذا يديلوين كذا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى شنها دعيد قشو يهودي بقلية وحي يدكو يري أماني بالله يراهدايو إنك أباي مكان أنت مسلمين تتاسويكم ولا تعرف نواب أجرا إن كتابك سكلا لا تبزيرو إن علومتي شرعي هيدا مالك لا ديغو يدي ديلوين أنا وحبا كتيرينا dadka laga dhaadhiciyo aad buu badan waana wax yahuudi nooga hormartay marka ayaga waa caamadoodiina waxa lagu shubay waxaan waxba sal iyo raatoona lahayn marka afarta fariiqo kala qaybi war muslimiin rajayay idinka gelin waa tay isbal wala naga qoosinaya dacwo kasta hadaynu ku fidino kor iyo hoosba ugu yeedhno inaan waxay naga rumeynaya yar yahay laakiin dacwadii miyaa la joojinaya maya dacwada la joojin maayo ولو يوريا حقنا والله عدينيا حجتنا ولو اوغيا لكن ما حد يقين سنيسا وحق الراعية وفرقود كود قالوا حد سبب تصاريف كوا حي وعلماء دو منصب كي إلى شنيانو وحي أركان هدي رسولكو أي راعان وحن يمنصب كان وايا رؤساتنا والله مذو ساسو كلمة دحلا سنسلين مدحتنا مدينة حشدة كون منافقين يعني ولا بوجيل أيقونا مربضنا وعظم عامدينا وحلا فرحة وقومت شرانو مع علماء ذودن يمدح ذودن بيس كتب السعودانة وحلا وتقليد الأعمى وكنت يشين طلع إلهي سبحانه وتعالى صد المرة لبعض آيات كاسعين وفهنو أفتطمعون موحرة شك قبتان مؤمنين موحرة شك قبتان وطمع إذن كجشران أن يؤمنوا أي أن يحدث الإيمان إيمان إنه دعوه لكم أي لأجل دعوتكم دعوتي باقين درتي وقد حان حقيقة وحوا هذا فريق كوح ومنهم يجا كم كوا يهودي يسمعون وحي مقليان كلام الله على هذا الكيس والتوراة عن طريق البلاغ قارسينتي ونبي موسى سو قارسيي ثم كذب يحرفونه ويبدليان من بعد ما عقلوه انت فهمين كذب وهي قرتين وهم يعلمون يقول علم أولى أي تحريفنا ولذلك بصفات كرسولك أوردن ويبدلين ودحدحال دركيسو وديري هاي قريان وكسته markay iyaga soo gasho way bedelayaan kuwaas waa culimadoodii وإذا لقوا ومنافقينتودي وإذا لقوا مركي لكرمان الذين آمنوا كوا مؤمنين قالوا وحي لهذين آمنا مؤمنين بانوا نهاي سيدا إذا كوا مؤمنين تهين إيمان بين موجة سنيان هواستنا قال لما يكون قرصانيان وإذا خلا مركي يكون نقضان وإذا رجع مركو كل لابطو بعضهم بركود إلى بعض بركة كرا مركو كل لابطو أيا قرادي تري آمنا لعناننا يا ولا لمرميا قالوا وحي لهذين والرؤسدودي وفريقي صدحات أتحدثونهم والموحى وشيغيسان مو مسلمين تام ضمير كان مسلمين تدعو علينا بما فتح الله أي بالذي كي فتح الله إلهي إذن فري عليكم كركينا وحي التوراة إلهي أوصاف إذن كل شيء أي وشيغيسان هاو شيغينا marka waa dad dhaqankii ka dhigtay inay iyagu wax isu sheegaan dadka kalena wax ka qariya farqina ma laha inaad adigu wax isu sheegto dadkana ka qariso iyo inaad adigu wixii aad isu sheegaysay adoon raacaynin dadkana aad u sheegto adoon raacayn wax farqiya ma laha
markaasaa ilaahay yidhi subxaana watacaala liyuxaajuukum si ay idinkula doodaan bihi shayga cinda rabbikum rabbigiin agtiis afalaa tacqiluuna war miyaydaan caqli lahayn maxaa xujada isugu oogeysaan ilaahayna xujadii wuu ku oogay awalaa yaclamuuna wa miyaanay ogsooneen kuwaasi ana allaha alle yaclamu inuu og yahay maa yusiruuna waxay qarsanayaan wamaa yuclinuun iyo waxay muujisanayaan intaba ilaahay waa muujinaya waana kashfinaya waana fadeexadeynaya wa minhum waa fariiqii afraade waxaa ka mida kuwa yahuudiyoobay ummiyuuna qaar aan waxna qorin waxna aqriyin oo maxay waa caamadoodii laa yaclamuuna garan maayaan alkitaaba garan maayaan ilaa amaaniya ay walaakin hase yeeshee amaaniya ay yactaqiduuna waxay rumaysan yihiin amaaniya yadidiilooyin iyo sheekooyin beena oon waxba ka jirin wain hum ay wamaa hum mana aha ilaa mooyaane qaar yadunnuuna wax malaynaya mooyaane wax kale maaha dannigaasina waa baatil ee xaq maaha qoladii koobaad ilan eeg waa afar qaybood madax munaafiqiin caamo iyo culimo yaa ugu ceeb xun culimadaa ugu ceeb xun qoladii baa ilaahay kuu sheegaya habaaraya waa la habaaraya habaarkuna wuu ku dhacaya fawaylun halaag baa liladiina kuwuu u sugnaaday yaktubuuna ku qorayay alkitaaba kitaabka ku qorayay iyagoo taxriifinaya biaydiihim gacmahooda axkaamtii way bedelayaan xuruuftii way bedelayaan wax walba way bedelayaan uma yaquuluuna waxay odhanayaan haadaa kaasi min cindi illaahi waa kii ilaahay xaggiisa ka soo dejiyay tawraadka xukunkii ilaahay muuse uu keenay waa kan liyashtaruu si ay ugu bedeshaan bihi waa kitaabka bihi ay bilkitaab waa kitaabka ay taxriifiyeen thamanan qiimo qaliila yar carad adduunyo si ay ugu bedeshaan fawaylun lahum waa ta'kiid mar labaad baa la soo celiyay labada ficilna way kala duwan yihiinoo lacagtay qaadanayaanna waa dembi taxriifka ay gelayaanna waa dembi fawaylun lahum mar labaad baa la soo halaag baa u sugnaaday mimaa katabat aydiihim minta hore marka waa sababiyo oo fawaylun halaag baa u sugnaaday mimaa ay min aladii kii xaggii katabat ay qortay aydiihim gacmahooda taxriifkay qoreen awgii iyo sababtiisa xaggiisa halaag baa u sugnaaday alla ha idinku halaaga dheh wawaylun lahum halaag baa u sugnaaday alla ha idinku halaago mimaa ay min aladii kii xaggii yaksibuun ay shaqaysanayaan labadaba damiirka waad u qadaraysaayo maxay yaksibuunahu ay ku kasbanayaan waa thamanun qaliila waa lacagta ka soo gelaysa waa laaluushka ka soo gelaya laaluushkana alla ha idinku halaago taxriifkana alla ha idinku halaago labadiiba gaar ahaan waxay kusii dhacayaan culimadooda halkan culimadu waxaa tusaale kitaabka uu qoray ibnu taymiya raximahum allah saarim almasluul la yidhaahdo ninka rasuulka caaya wuu ku keenay meelo kaloo tafsiirkana waa lagu keenaa waxyaabaha la soo geliya waxaa ka mid ahay dadka ilaahay habaarayo culimada inta ilaahay qofka makaanada u geeyo oo uu sarraysiiyo inuu isagoo haddana hoos isu rido waxaa ka mid a qisaska la inoo sheego ee inaga ummaddeena ka dhacay rasuulka markii waxyigu ku bilaabmay calayhi salaatu wasalaam uu kusoo degayay ummi buu ahaa ummigii isaga waa u sharaf waana u mucjiso dadka kale waa ku ceeb laakiin rasuulka waa u sharaf addoon aan waxna qorin waxna akhriyin kitaabkaa maanta aynu laqbaynaynay mucjisada aan lagu soo dejiyaa isaga waa u sharaf sidaa darteed markii kitaabkaasi lagu soo dejiyey sala allahu calayh wasalam rasuulku wuxuu sameeyey waxa la yidhaha kutaabul waxyi oo waxyiga la qoro markaa rag saxaabada ka mid uu xulay oo qori jiray waxyiga marka waxaa la soo arooriyaa nin asalkiisu nasraani ahaa kristan ahaa laakiin aan la magacaabinoo magaciisu siirada ma gelin oo soo islaamay oo islaamnimadiisa wanaagsanaatay kabacdina wax bartay oo asxaabtu waxbarashada qofka waxay ku qiimeyn jireen qur-aankan soo degaya baqariya ali cimraan ninka dusha ka qaybaa wuxuu ahaa agtooda nin makaanad sare sare baqaro xifdiyey oo ali cimraan xifdiyey oo ka mid ahaa min kutaab alwaxyi kuwii waxyiga qoraya magaciisi lama magacaabin laakiin siirada wuu inoogu qoran yahay ayaa waxaa la yidhaahdaa markuu waxyiga qorayo ayaa mararka qaarkood aayadda waxaa ku dhammaata wallahu caliimun xakiim
iyo in la yidhaahdo samiicun basiir. marka waxaynu ogsoonnay qur-aanku wuxuu kusoo degay 7 axrufin 7 xaraf oo luqooyinkiia 7 xaraf buu kusoo degay. 7 xaraf markii dambe waa la rafciyey badankeedii. marka qaarkood baa wuxuu idhaahdaa wallahu casiizun xakiim, wallahu caliimun xakiim, qor wallahu casiizun xakiim. markaasuu yidhaha waa labadaba qor, kaa doonto qor. waxaan idhahay waa meelihii qur'aanka ay khitaamkeeda ay qiraa'aadka kusoo degeen 7 mathani, waxaan ujeedaa 7 axruf. casiizun xakiim iyo waa laga yaaba caliimun xakiim labadaba inay soo degeen. taa doonto qor. markuu muddo sidii waday ayaa shaydaankii waswaas ku rido wuxuu yidhi waa ninkan aan ummigeen waxna qorayn waxna akhriyayn, waxaad adigu u qoraysa uun iska qaadanaya ma isagaa waxba isla haya. wuu ridoobay, dib buu cararay, qoladii nasaaradooda ahayd buu dib ugu laabtay. nasraanimadoodii marka way soo dhaweeyeen. maxamed ma taqaanaan buu yidhi anaa idinka aqaana. war waxa qoraya oo aan u qorayaba warba uma hayo, anaa wuxuu qoraa waxaan u qorun buu iska qaataa. ilaahayna rasuulkana waa ilaaliyey, qur-aankana waa ilaaliyey. wallahu yacsimuka min annaas baa la yidhi oo daatadiisa qofka caaya ee wax ka sheegay ilaahay subxaana wa tacaala ciqaabtiisa usoo dhixi mayso. ilaahay qur-aankana wuu ilaaliyo inaa naxnu nanzalna dikra wa inaa lahu laxaafiduun. ninkii rasuulku wuu habaaro wuxuu ku yidhi in sha allahu markuu dhinto dhulkaa diidi doona. mudduu noolaa wuu geeriyooday. markuu geeriyooday baa lays yidhi aasa, waa la aasay. wuxun baa lasoo toosaa ninkii oo dhulkii soo tufay oo dhulkii bannaankii yaal. markaasay qoladii nasaarada ahaydna sawra waxa samaynaya waa muslimiinta ceebta uu ku sheegay dartii ayay waxa u yeeleen. iyagaa xabaashiisa soo qodaya, way la colaadinayaan. mar labaad bay qodaan, xabaal kale ay u qodaan, way kasii dheerayaan, way ka adkeeyaan. habeenka labaad mise dushii buu yaal. markay u taag waayeen meel alla meelay ku aasaan waayeen ayay bannaankii kaga tegeen. wahaakadaa soo dhixi mayso. waana habaar la habaarayoo dadka ilaahay diintiisa bedela ee rusushiisa caaya ee kutubtiisa caaya weyl baa meel u yaal. qaala tacaala fawaylun halaag liladiina kuwii buu u sugnaaday yaktubuuna qorayay alkitaaba qoraya biaydiihim ku qoraya uma yaquuluuna odhanaya haadaakaasi min cindi illaah alle xaggiisuu ka yimi liyashtaruu si ay ugu bedeshaan bihi isaga thamanan qiimo qaliila yar. fawaylun halaag baa lahuma sugnaaday alla ha halaago mimaa oo kii xaggii ka yimi ay min alladii kii xaggii ka yimi katabat ay qorta aydiihim gacmahooda. taxriifka ay sameeyeen waa lagu ciqaabaya. wawaylun halaag baa u sugnaaday lahum iyaga mimaa ay min alladii kii xaggii yagsibuunahu ay kasbanayeen oo laalushku qaadashadaasa ay kasbanayeen. tusaale kalaa markaa laynaga siinayaa. markaa culimadoodii markaa tusaalaha laynaga siiyey saa loo habaaray caamadoodiina maxaa tusaale laynaga siinayaa? waa kuwan. waqaaluu waxay yidhaahdeen waa ummiyiintoodii lan tamasanaa na taaban mayso. dhammaan maca culimadoodu way la qabaan. lan tamasanaa na asiibi mayso annaaru naarta jahannama na asiibi mayso ilaa mooyaane ayaaman maalmo macduuda tirsan oo wax yara. waa intee? qola waa 7 cishay leedahay, qolana waa 40 cisho. wallahu aclam. 40 cisho qolna waa 7 cisho. waxay leeyihin adduunyaduba waa 7,000 oo sannadoodoo 1,000kii sannadoodba hal maalin baa nala cadaabaya. waana beentooda. qulku dheh rasuul allah waa la radinayaa. attakhadtum ma waxaad la yeelateen cinda allaahi alla agtiisa ma waxaad yeelateen cahdaa ballan? ma ilaah baa ballan idiin qaaday? ma ballan baa ilaahay la yeeshay? marka ittakhada laba mafcuul buu qaataa. ka hore waa cahda, ka labaadna waa cinda allah. ma sidaasaa ilaahay ballan kula gasheen? macnaheedu waxa weeyaan laa, may. falan yukhlifa allahu allana baajin maayo cahdahu ballantiisa. ilaahay ballantiisa baajin maayo. ay in ittakhadtum haddaad la yeelateen allaha cahda falan yukhlifa allahu alla ma baajinayo cahdahu ballankiisa. taasi ma jirtaa? maye ma jirto. maxaa jira haddaba? allah ka warramay am yaquuluun. amtaa 3 waji baa kuugu bannaan. in hamse keliya laga dhigo, in bal keliya laga dhigo, iyo bal iyo hamse wada socda in laga dhigo. qowlka ugu raajaxsanna waa bal oo quroo laga dhigon hamse wadanin. balna waa xarful intiqaal weeye. markaa bal hadalkaa hore ka wareeg, kaa iska dah. taquuluuna waxaad leedihiin cala allaahi alle waxaad ka sheegaysaan maa baad ilaahay ka sheegaysaan
لا تعلمون علمي أيضا لهين جهل باكو هذا ليسان وحل الله وحكو هذا ليسان وجاهل نمو حتى مركز سيدا صح هي واسدا تينا سوا خلط علم الآن بانا كو هذا شيء بلنا ما شرتو تسعة هيدواته واتنسو صعود بلا ما ترى هذين لن تمسنا النار ما يأوي إذن تابنيسا بلا ها وإذن تابنيسا النار حال آت كواريسان بلا ها أي تمسكم النار خالدين فيها نفي قوة سالة قد بتورية من كسب قفكي شقيسته سيئة حمانها نشركي قوة الرئية وقال لماذا أي كود عين قال لماذا هي شركي وأحاطت أي كوبتو به قفكاسي خضيئته الذنوبتيسو قارهان قال لماذا أي كوبتو يسكو ريتشيسو فأولئك كواسي من تهيا مفرد كوغتمي معناها أنا جمع بيكوي منيسا فأولئك كواسي أصحاب النار نارتا أصحاب تذويه هم يقولون فيها نارتا خالدون كواريا إلهي كواي نقمدقو وح الدنيا ذا لقا قبحو قال لي ما وحن وح لقا قبحنا وح أغو خيرون إيمان إنك قال لي ما كنت انت يهودني ما إنك كنت انت وخالد في النار ما أنت جاي نان تذكر دربان لا يرادو تقارب الأديان يلا يسوسو دوين وما يسوسو دوان يا مجرو أفتطمعون تاجنتاي نصارى حبها سو دوين يهود حبها سو دوين هل كاسي كو دنبينيان كودي دنت كو مؤمنين أنا محي كو دنبينيان إلهي كو دنبحي نغاي يلو نرشنا إلهي خاتمة خير هاي نوغو ختمو إيمان الله هاي نوغو سوغو الله هاي نوغو سوسارو والذين آمنوا كو إله رميي وعملوا سميي الصالحات الأعمال الصالحات أعماش الصالحات كاكوي سميي أولئك كواس أصحاب الجنة جنة أصحاب تذويه هم يون فيها جنة خالدون كواريا والقواعد أساسها إنكي إيمان كودنتا وأهل الجنة إنكي قال لما كودنتا وأهل النار وكواريا حديثنا وحي نوقت من قيامة مركا حكم كودما هذا فريق في الجنة لدميو إن موت كبا غيري دبا سيدي سقا وانا انت لكينا الله برينيو مركا الله ورنا يا أهل النار خلود لا موت ويا أهل الجنة خلود لا موت هذا يقول فرحات ودمان يسمى عليها أهل الجنة ودي والله هذا يقول أنا نحن ودمان يسمى عليها إلى قريبة وترتي أهل النار كان نحن ودمان لها تاسع نقدم بيسا والله أعلم وصلى الله على